waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo oo aad nooga waranto qisada dhimashadaadii iyo soo noolaanshahaagu sida ay ku dhacday. waan dhowahay aad iyo aad baan u dhowahay qaybta intii aan ka ogaa barnaamijka markii aan koomad ka soo baxay dabadeed ayaan idinka sheekeynayaa inta kalena xogogaalkii ayaa ila jooga. waayahay sidee horta marka u horeysa wax kuugu dhaceen taariikhdu goormay ahayd halkay ahayd taa nooga bilow. 98kii bay ahayd goobta Hargeysa ahayd xawaalihii sheedii hore buuxsamay bay ahayd iminka halka wadadii fi akhray ku go'do way boqolka taraysh ka dhamaadaan hangarada xawaalaha ka dambeeya ay qisadu ahayd halkii ka dhacday. maxaa kugu dhacay? waxay ku dhacay gud ariiskoogii ma nin waalan igu dhuftay anoo ciyaano sii jeeda marka raggii geelbo ka gagabaano marka ariiskoogii marka halka dhigta dabeeda ayuu ka dhacay ninka waalan igu dhuftay dib koomadii afkan biyaha u dhacay ayaa miirkii ma ku mitay markaas ay ugu dambeysay caalamkaba. muddo intee leeg baad kooma ku jirtay? 15 cisho ayaan koomada ku jiray. haye markii nabarku kugu dhacay ee aad dhacday halkee lagu geeyey yaa kaa qaaday goobtii halkee lagu dhigay? goobta walaal markaa cidii ka qaaday ma ogeyn iyo waxa soo baraarugay markaas koomada ka soo baxay ee hindisay ilka dhixiisa ku hindisay ayaan soo baraarugo caalamkii warisay intii hore dadkii kale xogaalka ayaa jooga. laakiin taariikhda wada haysaa dee markii nabarku kugu dhacay yaa kaa qaaday goobtii halkeese lagu geeyey? goobta dadkii joogay markaas ayaa goobta ka qaaday. hay xagee lagu geeyey? dhakhtarka la geeyey. waayahay intaad ku jirtay? 15 cisho koomada ku jiray. hay dhakhtarka 15 cisho ku jirtay? may dhakhtarka adu 15 cisho meel markii ku jiray laga soo qaaday. waayahay xaafadda la keenay. hay haddana markaan 3 cisho kadib la igu celiyay koomadii baan si uu soo bixi waayay haddana. waayahay iyo tan markaas maalintii 16aad ayaa la igu ninkan inta qaata. hay saas la igu bixiyay. yaa yira qaata ya dadkii joogay markaa meesha khatiirtii joogtay goobta. hay inta saasi familkii ku qaadeen igu aan bixinay. xagee kugu bixinay loo geeyay? waxa la geeyay xaafadda la geeyay. waxaan doonayaa si dadku u fahmo sheekadaada inaad beenbilow ilaa dhamaad si degan uga waranto. dhakhtarka laga qaaday gurigeeni baa lagu geeyay maxaa dhacay? gurigii markii la geeyay waa la meeray. hay qabkii meedku lahaa ayaa laga bixiyay. hay wixii meed loo qaban jiro dhan laga qabtay. hay markii saaleeyay bixiyay dabadeed waa lagu maydhay. waa la kafay. kafan baa lagu geliyay. cudbigii waa sankiyo dhagaa laga geliyay. haye markaas hadda xawaalihii la geeyay salaatu jinaasada lagu tukaday. waaya salaatu jinaasada kadib baa ilkii la dhigay. haye markii ilkii la dhigay ayaan ku dhisay. haye sababta ku dhisay ayaa miirkii ma ka waanigi ilka marka lagu dhigay adigu ismaad ogey? waxba ismaad ogey ilaa xitaa inta sheekada un baa la iga sheekiyaan waa lagu dhigay ilki baa lagu dhigay kafantii baad ku xidhan tahay xabaashi baad ku jirtaa sidee wax u dhaceen markaa? waxa u dhaceen markii dhoobadii qawmud laga dhigay dhabanka lagu dhigay dhoobada barkeeda loo dhigay qofka. waaya dhoobadii qawmud laga dhigay ayaan sidii qof doonigtii bii laga shubay ayaan hindhiso iyo inta kala qaad ayaan israaciyay. waaya hindhisadii markii aan hindhisay dabadeed ayaa waxa ku dhilay dareemay markaa ninkii ag fadhiya ayaa ka mid ahaa raggii dareemay. waayahay ninkii ag fadhiya ayaa ka mid ahaa kowde. haye markaa isaga iyo qaar kale ayaa meesha joogay markaa dee raggii 3 nin ay salaxayay meesha markaa isaga ugu horeeyay qof bini'aadan oo arko dee indhaha ku kala qaado oo dareema dadkii kale wax dayaacay wax kale ay noqdeen. maxay la yaacayaan dadku? waxay la yaaceen hindhisadan ka hindhisay ayuu kii kale ninkan la joogay u booday oo intaagii u booday ayuu kuwii kale dib taagnaana ka sii yaaceen markaa isaga igu soo haray markaa qaybta kalena dee isaga idinka sheekeyn doona iyo faahfaahinteedaba. wadaad halkaa ii joog waxaan jecelahay Saleebaan Cabdi Nuur ku soo dhawow barnaamijka. ku soo dhawahay ninkan sheekadiisa waa la socotay. maxaad kala socotay? waxaan kala socday anagu dhacdadii waxaan ahay gurmadkii horeeyay kolkii ay hawshu dhacday kolkii laga keenay dhakhtarka ee guriga la keenay baan anagu la kulmay ninaan horta. waaya ninkii waa meyd balay. haye 15 dhaaro horena waa lagu samriyo intaa dhakhtar iyo meel walba waa laga maray. waaya waa ninkii meyd baa la isku raacay dhakhtar iyo shicibba. haye waa la aasayaa. haye xabaalaha taga xabaasha qoda. waayahay markaan u dhamaynay anaga nila soo hadlay xabaash baad ka qodday? xabaashi baan qodnay. xabaal bilaashtii markaan dhamaynay ehelkii aan bilownay ayaan anigu iri war ninku malaalaaday oo dee qofku marka uu dhinto waa kan la isku soo jijabiyey
dee nin nolol laga sugayo ahaa inuu sabiin fitay oo eelka waanu ballaadhinaa ninkii eelka qodayana ka mid bana maya waanu soo laabnaa lii xubnaha marka hore may laabnay imika laakiin waan soo laabnaa lii dabeed eelkii baan dhex jiibsaday waa isku eegay deebka ninka weyn buu ahaa nin yar buu ahaa beriga guri maylay ninka waa nin xaas leh eelkii markaan isku eegnay yaa la keenay maydkii waa la keenay saddexdeedii eelka qodnay oo ku jira يعني سيدي حلينا بعدها قال صادقي سيدي عادة صلاة الجنازة اللي قلت كل صوت كذا دون مساجد كذا صوت كذا حقنا على مصور لما يستر أنا جميت كل سيدون بدل واقع أنا أقول لما أنا ولي كسر به يعني ميت كل سيدا نسوا ديوان كبي حلو معنا كرمه في نياش ما بنحضر مع مركا دي السنة صدق حريري وصدق دعير بنا صدق حين صدق دعير هكسر بحيني أبتالي صدق سلاك باقة بتاعيه كمركا قف وحباش ودير تاعي صدق حريري مركا عمو كي مدح يحيي بنا منها كا دبر ايوه خيا منها كا لبا لابه xubnuhu ka soo laabmaan saa markaan soo qaranay labada jilbood baa laga fariistaa aayir baa meedka suura u damqan yaa la geliyaa saada dalilada lay ka fura xarigi yaraaye markii hore labada dhan laga soo halka garbaha iyo halka misigta saddex meelood ba marka meedka la dhameystiro laga soo xiraa xagga lagu leeyahay xarigi uu horeeyay markii ka furay baan xarigi markaan ka furay dhinaca la baneeyaa ragga dumarka iyaga lama taabtee inay markaan saa u baneeyay lay dhoobadan iyadoo taleysoo dhiibay saftaatiirta halka dhabankii halka xudurta u dhig misigta xabadii horeysa markaan halka misigta saa u dhigay intii labaad ee dhabanka la dhigay sidaa u dhigay waa midibtii loo soo qabanaysaa ee sidaa inta naqas kulul gacantii midigta saa u qabsaday waan yaranahayo bisikii baa qabsaday anoo yara yaabin buu adana hidis disti wili baa kii kale waa ninka uu noolyahay labadii baa istabiya oo kii kala dibay markuu dhexda joogo soo noqday kii kale isagu xawaaru kaga booday meesha xabaash buu ka booday Allah kii uu aan babarsan kii kale dibadda joogay shaaha adeero ku taray inna markii xagga loo yaacay war maxaa aragtay markaas subxaanaka mucjisaan arkay ninkii uu hidisay ولا سويا أو أنا قلت إنك مجاهي يا بنهاي إنك مجاهي يا بيجي دقائق ما له في سلامة أنا جبل الأهل فمحاضر الثاني وين محان مركعو عدمان علمي نيجي كلام ربع لهم نيجي بس أو سو قرب بدي قعنك شو عبسناي هم له من يبي ما يما إذا كدايو يقولون بذكرات يقول بين بات سكتين توافر يا حدا بيجي بقول سياسي يقول بين مركز ولي حين ابن احنا عذرا مثل من اليوم سو صارنا انا دتك دبد جو دبديو حقا بيحد تاغني افر لو odayaawo ku soo haro waayeena iyo halka xabal bilaash tow horta ku hubiya ninka marka dhaqaaqii soo kaamil aragtaan meedku uu dibaaxiya oo waxa jira dad marka ay rasaas degdeg ugu dhacdo ay nafta xoog kaga baxday uu jirku wada dhaqaaqo ilaa ilka laga soo baxay وبيا بالي شنو طبعا معلومات لك عن بيا بال لسين سينو كسعتي ميت كاها إنه كان لك يقول لي هاي تتكيد سوق المري نلون بكي مني نجيل ما يرون اللي يبي أمر أنا ما يتشتاي هذا هو بيا طب دقيقة ما رأيتها يمكن لا بدي ولا تمانو كلا عنده كلا قال هي عندي مركو كلا على درجة طوال ساقطي صدق حبايبي شوفتي كيسبوا بحسنا كم خلاص صار هذا هي أنا كان صار وايه يدي هركي بالكيان وحلوة ديرة توخذوا دخترك على غاز سوق هذا إيه كان غاز سوق بحين لما يبين هاي وتوخذوا مركا بقول غاز سوق دبي دختر يوم بقول دبي معوي سينا واتم شهر فينا قشال هاي يقول دعاي بقى سوق على مركا هاي يا تبي شهر كيف كل الله حلو دي تلو كويس لو قالوا حلي ميت كي وكفنتي هالكن لو قاعدوا دمركي ودا بريء دمركي waxankii sameynaya hadii ninkii la weynayo gaariga ka dago waxba bay isku wareejiyeen hal geeyay meel kale lagu soo hubiyo ayaan si yaani dadku u dhaxdib gooyo walidadii dhalay odaygu isagu la socday daabiyo xaybo halka ay joog adigu waxaad ahayd ninkii dhoobada dhabanka u dhigay ee ugu hor dareemay ila dareemayay markii dambe la raadin ila dad kala u sheegay
ninkii kale ee kula dhigaya eelka waxaad sheegtay inaad saddex aydeen mid wuu cararo uu ka booday meeshii kii kale markaad ku tiri ninku wuu nool yahay muxuu dareemay isagu siduu xaalkiisu noqday wuu sikitiyey wuu qarqarayay ma garanaysa dadku kale calo adagida anu arrintaa ma hubo waa kana ninka balsaar naqaska saa u saar gacantoo sabada u qabanaysaa hor saar neefta soo baxaysa labada dul waad arkaysaa kiyo gacanta gariinayso waxba hagaagu hubin yuusaa muu radhawey markaas wuu noolyahay warda halkiisii laguma gelin waxbaa gariinayni wuu noolyahay xay maad u sheegaysaa dadka hawaan u sheegayaa u sheeg haddana bulshada markaasuu warninku wuu noolyahay markaasay dadkii wada yaacay soo noqdeen hadduu noolyahay aragno ha dhaqaaqaa layidhi u dhaqaaqo annaga xay labadayadaba waanu aragno dabeeto wadaadkii afartii oday waayeelkiiba ma hubtaan ninkaasoo iilka laga soo saaray inaad hubtaan odaykaa kiyo niyadiinu tamaan tahay aad arrinkiina ku saxdaan ayaa loo baahanya indhihii markuu kala qaadaan wakaa ninka waxay indhihii kala qaaday adigu salamaano dee dabcan waa markii kugu horreysay saanfilayaad aragto qof iilka la dhigay waa dhacdadii in badan oo dhigay waan arkay laakiin dhacdadaas noogu horreysay ayay ahayd